bishatani waa bil aan rabno laba wax inaan helo kow in ilaahay dembigaaga dhaafo hadda maaha inaynu iyada dembi kororsanno dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaa bishii uu dembiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba maaha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudow marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan la inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min uctaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ku xoreynaya habeen walba naarta bar baa laga xoreeyaa bisha tanona wadaaka fi kulli layla munabi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeyo inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyay waxay dhahdaan culamadu bisha tani waa shahrun litaghyiir gebigeedba waa systemkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow de isagu waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray malakul jibriil baa u yimaada nabi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle ilaahay hadalkiisa idan bisha tani bay culimadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadabburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa idan bisha tani waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho warbal ilaahay warkiisa faham horta rabbi waxa uu kuu sheegayo rabu الsamaawaati wاlard ayaa adiga kula hadlaya bidaatig dadka quraanka markay akhrinayaan cid kale ka fikiraan cid kale ka fikirin adigu baa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisa loola hadlaya waxyaabaha bishatan oo aad ka qaban jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ama muslimiinta oo faray waxa kamid ah qiyaamul leylka taraawiixda salaada badan ee la tukanayo inaad salaadaha badsato waxyaabaha la faray waxa kamid ah bishatan aadka loogu dadaalayo oo nabigu sameyn jiray at-tasadduq sadaqaadka inaynu inagu wax cunaabaynu badinay inaynu dadka wax cunsiino sida awgeed ayuu saxaabiga muxuu lahaa nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan ee asliyan baa nabiga caadadiisa waxay weligii wax la weydiiyay maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyay aan maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fii ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnay wax bixintiisu ka riixil mursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya sidii dabayl dhabanaysa dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ah yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu way furray bishatani waa bil markaa dadka muslimiinta takaaful ijtimaaci isu naxariistaan فقرada wax la siiyo masaakiinta wax la siiyo qaraabada la xidhiidhiyo tolka la xidhiidhiyo cid walba wax la siiyo waxyaabuu nabigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhaahdo samayn jiray the last days baad ku jirtaa tobanka maalmood ugu dambeeyana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabka ka kaalaya mubaaxaadka iyo xalaashii buu ka tegayay xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegayo ajar ka weyn uu raadinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago duu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa siduu xadiidka nabigu sheegay laakiin tobankan maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaahay haweenkana ha la dhaqmina idinkoo ictikaafsan baa layidhi idan tobankan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya wuxuu u fasax qaadanayaa
inuu umuurta aakhiro oo qura bisha ka shaqeeyo 10 maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidaalika baa aayadda ducada ugu khaasaysanay waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyu'minuu bii aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhunna waanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soonka aayaadkii soonka kalena waa ka horeeya idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka walidaalika culimadu waxay dhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda daba ayuha alaxiba ilaahay wuxuuna leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxa yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu soomkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaanaه wa tacaala haddaa wax garanaysaan haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala diyaargarowgeennu ha noqdo sidii aynu ilaahay ugu noqon lahayn rabbi ugu xidhmi lahayn aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn